السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليد سودو دوادا يا إذن الله ملك استودون كجوكتان بحا إذن الله يا هاي ويلكم سودو دوادا هبين وناكسن مالي وناكسن وقت إذن تاي وقت وناكسن أو عن الله إذن كغديغو نوغديغو آمين 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 يا ربي إلهام هذا إسكالة دي سكسكين الحمد لله شكر الله هبين كلو خير قبو مالين خير قبطو وقتي كستو ما شاء الله أنا حبيني إيتاسا جدا نلال أيا أكشدا دا ما شاء الله تبارك الله أصحاب تقول بنسول الوهذا إذن الله هاي إلهي ما حد أسقنات مركل إنتان دي سهر فريستي يقدري أيام هذا إسكال كن يكون جر الحمد لله شكر لله رب العالمين صحابتي إذا قروح بدن والله إن ما أنت مركز وحركته الحمد لله وأنا هذا إلهي كل شكر سو sometimes جوجنا بني آدمنا وحبان إسك شجعنا وإسك دنباونا وحبا إيهستو لو بالا يجرب بالا يجهايا قرب بالا يجهايا أنت لا يجها وحبان قرنا أنتس لكن أنت العدو إسلا درنتا وماذا كادرن dhibaatadu inta ka maqantaan qof walaalka bay ku maqantahay dhibaatadu meel cidla ma joogto saxabteeda quruxda badan intaas dhan adalka uga gudbo waxaan halkan soo galay gabadhan walaashayn wada aragtaan gabadhan sad u jeedan waa u jeedan xaaladeeda gabadhan aad ayaan uga calool xumooday oo caloosh iyo hurta shiiqasna wada arkaysi ooynaya asigana ooyna qof kasto oo warkeeda dhageysato ooyina ma jirto wallahi caloosha ku horeyso sababtay tahay waxay tiri saddex nin ayaan guursaday nin kastaba caruurta ayuu markaan dhalo iga qaataa sababtoo waa cuuriyaan gabadha cuuriyaan hadday tahay waad u jeedaanba waa cuuriyaan miisay saaranta haddaba miisaa la idin kor saaran waxay tiri marka ninka markuu inta dee au marka hore iska kaa guursanayaa markuu ku arkay tiri inta yaraad ay qabsanaysa markay gebto oy xaamilo noqoto oy uur yeelato anaga lixda lixaad qabnaa markaad uur yeelato wada rabta dhibaatooyin badan iskala soo kaadirsaayo xanuuno badan caafimaad darra iska imaanay hooyada markay uur yeelato wax badan ayaa hormoonaheeda iyo orgaanaheeda wax kasta iska bedelayaan waayo ilmo nool ayaa rabbi ku beeray saa darteeda jiro kastoo dhiikar wax kastoo xanuuno culays wax kasta ayay la kulmaysaa waad ogtihiin marka san intaan cabaadna 24 saac annaga oo maaragta aan cuuriyaan ahayn oo lixdayna lixaad ay taam tahay ayaan intaas qaylinaa oo aan ognahay xanuunka maaragtay qofka markuu xaamilo noqdo ama laba naflaba oo noqdaba dhibaato la soo daristo waan ognaa haddana gabadhiyo ku cuuriyaan oo iyadaba cuuriyaan tahay waxna haysanin ninkii kusoo biiro markaas nin wuxuu ka raadinaa badankooda dadka ayaga dhan ma ahan laakiin dan buu maaragta marka hore u soo gelayaa dantu rabo markuu ka waayana culays kalena oo ugu sii daro culayska hore uu iskaga dhaqaaqayaa hadduu meeshaas ayuu waxay tiri ugu furaa ninka adinkaaba dhegaysan doontiin in yar ayaa idin dul maraa markuu halkaa igu furay tiri oo iska kay furo iga tago hadhow ilmihii markay dhashaana wuxuu leeyahay isii ilmahayga amba ilmahayga markay ilmihii u diido oo maaragtay ay ilmihii tiraado kuma siinayana haye muxuu ahaayey waa kaase bal waayahay adigu si aan biilka uga baaqsado uga cararo ayuu falkeeda gelaa nin bini aadam waa naqaanaa xaaladdu aad ayay u cakiran tahay waan la ilmeeye qof kastoo wallaahi damiir len wada ooy doontaa adigu aan ku arkaayo waad la ooy doontaa waxaan ka codsanayaa ummadaas arkaysa ee haddaba soo bandhigtay gabadhan inay daahir cali soo qolkeeda geeyaan oo ay geeyaan qolalka dadka loogu caawiyo amba idris beebe oo meelaha dadka lagu caawin kara ay geeyaan gabadhaha la caawiye taas ayaan ka codsan lahay walaalayaalo haddaad igu caawi kartaan u sheer gareeya u geeya gabadhaas miskiinta ee meelaha lagu caawi kara hala geeya biliis ambiliis bal waa tanaahe waa isku soo noqonaynaa bal adinkana dhegeysto dhagiina ku arka ilmihii 3 waaye 3 nin maanta hal cunug
qoftaan uurey leedahay maanta nolosha meeshii ugu xumeeday taagantahay markii la dhaxlay liiga tagaa ma fahanti wax liiga agtag ilaan qofka marka la soo guursanayo uu qurux badan yahay adi wax ma kuugu baahno ani marka wax guriga dhexdiisa wax walba qabsada marka oo xaamil noqdo ma dhaqaaqi kari حامل مركان نقض مركان مدقاقي كري فانت قف كان إنا ومحلاي قرف كيسا وبهانا هاي وحاول بوشال عني أقف سنة أسئيقا وعندها هدو أركو هو إنا عاو بحا مركا قفكي ما انت هذه قبل سيدي أكو كالتكني قبل ديبات دلت مركي دلت وحال هاي يا gabadha way dhalatay markay dhalato waxaa la maxaa dhahay nasii gabadheena nasii sida shalay oo macnaa ninkaas uu idhahay ii kan idhaheen adi xaaladaasaan hay adaa kaalmo u baahan cunug ma kori kartid gabadheena nasii anakaa korsanayno waxaana waa korinaana cunugteeda ogaada haddii kalaa dha iska dhaafay wixii ani cunahay la cunay cunugteeda la yidaayo markaasaa la yidhaha iyadana macnaa waxbana ma weydii kartid hadday xanuunsad isla sidii oo qofkaas shala oo wiilkayga aabihiisa oo idhaha maaragtaa ee iikana aabihiisa iyo awowgiisa nool oo guri joogo kuwa dadka saas idhahaana iika waa hadday xanuunsato adaa lagu heystaa oo maxaa lahaye hadday dhunto iyo hadday dhimato ba cunug caafimaad qabaa kaa rabnaa camal ma fahanta markaas marka waxay qof damiin ana loo keeno oo hadhow bari ka maal cunugtaas wax haday ku dhacaan anaga u qabsanaad cunug ma ku siineen marka waxaan cunugta hooyadeed ma himiyaan damiin seel oo keenada war cunugtan haday ugu ogaanaysin igu ogaada haday kalena iska dhaafada adi sidii igaaga aamusay cunugtiis gaartay hadana wiilkan yar oo ani haysto marka ilaa halaas ay ka gaarayaan ani ma shaqeeyo maxaa la meel ma aado guriga dul saarana walaashii ciyaaleysan oo meelaha xaaqda way noo safree maxaa la nin saddex ilmay saddex waaye saddexda nin maanta hal cunug qoftaan uurey waad soo aragtay waana soo dhageysatay waxaan arkayeena calool xumada iyo qalbiga ku xanuunaya bini aadan aad ilaan tahayna waad soo aragtay marka walaalayaalow waad u jeedaan waxaa iigu calool xumo badan oo iigu daran oo caloosha ila hurtay marka lagu yiri gabadhii yareed ay dhashay oo ninka hore ayadana wiilkana ka qaatay markii waxay tiri wiilka hore sida aabiis ii gala ayuu kii kalena ii galay wuxuu yiri si gabadhayda markaan dhala gabadhii waxaan ku dhahay gabadheeda qof hooyo kasta oo baarkeeda oo nool weli damiir leh inkastay gabadhaas day awood u lahayn oo inuu wuxuu awood horta cunugtaas oo ina shaqaysan karin oo inan cunugta qoodi karo oo mar hadda fiirsan ay runta laakiin xaq wuxuu u leeyahay ninkaas inuu ku korbiilo xaq uma lahan inuu ka wato sababtoo hooyadan waa hooyo cuuriyaan waxay u baahan tahay ilmaha yar markay roonaadaan inay ayada caawiyaan halkeen markay dhashab looga wato oo kay dhashab laga wato maxay u dhimata ayadoo weli cuuriyaankaas ayay dhashay ilmahaasi maxay u dhimanaysay hooyo kasta waxay jeceshaa awlaadeeda waxay jeceshaa inay sidaas ayadoo ayay dhahdo waxaan cunaya ila cunayahay iiga tago ha iga qaadanin markaas waxaa lagu xujeeyay noo keen dad damiin adikaa hooyadii dhashay waxaan maqli jir biyo dhulgu arag lagana dhowr hooyadii dhashay ayuu leeyahay damiin wax ku damiinto iikeen wax ku damiinto oo gabadha cunugaas hadduu dhumo iyo hadduu dhibaato gaarto aan u qabsado iikeen buu leeyahay maaragtay oo maaragtay hadhowdii dib aan u raacdo ayuu leeyahay ninkaa isla fiican hooyadan oo dhashay ilmaheeda ayuu rabaa inuu ka qaato oo maaragtay iyadii intaas oo cidlo ilaahay cidlana ma dhigay rabbi raxmaanka ayaa uga fikira cidlo inaana joogin oo awlaadaas siiyey inuu ka qaata ma ahan rag damiir adaga oo naf
horta raggu ma naxariistaan miyaa ma naxaan miyaa waa hooyo 9 bilood ay siday naasay siisay waa hooyo weliba baahiyaha gaarka qabto ku caawi markaad wax ka dhalayso waad ogeed ma inaad ka qaadato iyada uu talagasho markay ku dhibtooto ilmaha oo ay dhasho inaad ka qaadato marka uu talagasho u soo dhaxgashay waad ogeed inay cuuriyaan tahay waad ogeed haddii lacal wax ku dhashay inaynaan haysa karin kaligeed oy u baahan tahay qof haayo wixii tiri waxaan shala qabsan jiray mar alla haddaan xaamilo noqdo ma dhaqaaqi karo inta uma dhaqaaqi karo dee qof awalba aad arkaysa inayna caga lahayn oo marka horeba gurguurinaysa markay dee calool xaamilo noqoto ilmo dhan oo ilaahay uu may dhex galaan ay weliba xaamilo sii noqoto ma awoodo inay socoto waxaan qabsan jiray shala ma qabsan karay tiri waxaan u baahanahay inuu asiga i caawiyo markuu ogaado inaan u baahanahana wuu iga cararayaa mid kastii tiri waa gabar yar oo qurux badan maasha allah tabaaraka allah waa gabar yar oo rag u baahan oo nin oo iskaga baahan waa gabar yar nolol u baahan waa gabar yar owlaad u baahan inay ficid waxay dhalaan dhasho waa gabar yar u baahan nolosha ficeeda helaan inay hesho ma la waayo mid ilaahay ka baqo iska haysto gabadhaas haysto oo ilmahaasna ku korsado kuna haysto ilaahayna ku tugo alla dartiis gabadhaas uu asturo uu caawiyo wala dadkeena muslimka iska sheeganayo ilaahay qabaan isuma naxayaan ma isu naxariisanayaan gabadhaas waxay u baahan tahay in la caawiyo qurbaha amba dadkan reer galbeedku gabadhaasoo kale xaquuq badan bay leedahay nolol qurux badan oo midda cagaha la rooreys ka qurux badan bay ku nooshaa boqortooya ayadoo kale laga dhigaa ilaahay waxaan ka baryayaa waxa iimaan leh oo caawiyo inuu ilaahay u sahlo gabadha yarta ee quruxda badan ilaahayga ma ogtaa cuuriyaankaba caga looma waayini ilaahay saas ka dhiga ma ahan inuu maaragta caga u waaye ma ahan inuu maaragta iyadu dembi gasho insha allah waad guulaysan habar yar insha allah bidmillaah kariim waad guulaysanaysaa ilaahayna ma ku moogo ilaahayna waxaan ku baryaa inuu wax khayr qabo iyo ummad ku caawiso in ilaahay kuu sahlo insha allah bidmillaah kariim waxaan ka codsanayaa inaad sheergaraysaan fideogaas una sheergaraysaan dadka sida daahir calisow sidii maaragta qof walbana wuxuu awoodo maaragtay hadda lambarkeeda aniga ma arkin lambarkeeda meesha uma qorin laakiin daahir calisow iyo idris beebe iyo wiilasha wanaagsan oo dadka caawiyo marka la keeno oo meeshaas laga caawiyo qof alla qofka awoodo wuu caawin lahaa halkaa halo maaragta daahir calisow cidda u dhow ha maaragta gabadhaas ha ugu sheergarayso insha allah bidmillaah kariim rajo khayr qabta ilaahay waxaan ka baryaynaa inay gabadhaas nolol khayr qabto oo farxad leh iyadoo intaan ka farxad badan inaan arki doono insha allah bidmillaah kariim aamiin yaa rabbi ilaahay u naxariiso ilaahow wax alla waxa jeceshaa ilaahow irsaaqad fudud u soo dhig ilaahow irsaaqad fudud irsaaqada u fududay oo waasac uga dhig oo owlaadeeda qurquruxda badanna ha ka qaadin ha ku akoraano ha korsato alla hooyo xanuun badan hooyo xanuun ayay ku nooshaa subxaan allah war walaalayaalow sheergareeya subscribe haddaa i tahay saaxiibow habar yar subscribe haddaa i tahay layga ii sar iina sheergareeya haddaadan ii ahayna please subscribe-ka ii raab layga iigu dar sheerkana iigu dar hayga iloomin aada umahadsantaa video gabadhaasna loo sheergareeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadka wax haysto wax dhiibaayo ha lagu sheergareeyo insha allah bidmillaah kariim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu